السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan. Bacda salaan waxaan ka yaabay maxay ahaydee colaadda ka dhex qaraxday Dhulbahante iyo Majeerta ama Puntland iyo Iraalas caanood waxaan arkay gaas maanta halka ka caytamaya gaas halka anaga Majeerteen kana qaban jiray kana nuu sameyn jiray anaga ka celinay reer hebel anaga reer hebel ka celinay maxay noo qabteen maxay noo sameeyeen kana dhabarka laga toogan jiray waxa ka hadlay wato ma aqaan Majeerteen anigu dad qabiil laga difaaco waa qabiil aad u ballaaran cid u baahnay saan anigu aqaan wasaas kulli waa dad qabaayil saga filan dad ku filan weeye waa dad aan u baahnay inta ay degan wadinka arkayla Itoobiya degan yihiin Majeerteen ma baahna cid hase yeeshee idinka waa ladin difaacay Dhulbahantow xaqa hadii laga hadlayo dhiigoodii maalkooda way ku bixiyeen hubkooday keeneen ilaa ay ka yimaadeen qoladii ugu shisheysay waxay ahayd bicidiyan baxtayeen si fiican bay idin difaaceen qoladii dushiina fadhiday ku soo dusheen way ka saareen si fiican way idin xoreeyeen marka gaas inuu yiraahdo imika waxna lama qaban anaga waxay noo qabteen ma jirto anaga kana hayno anaga bixinay anaga kan bixinay xaq ma aha sidaas koleydadii ehel wax wasiisanaya wax iska bixinaya ama dadkii dagaalka kula soo galay wax ku saacidi karto ku saacidaysaa dhut waayo iyagu maalkoodii naftooda bixiyeen waxaasoo kale inaad sheegataan bama aad sheegtid adiga gaasoo kale ka hadlaya wixii lamid gaas iyo wixii lamid baan ka hadlayaa garaadadu waxa kuma hadlaan afkooduna ma qabto mar walba dad wanaag ka taliya iyagu hase yeeshee waxaan leeyahay gaas iyo wixii lamid waxaas wax lagu hadlo maaha dad baa dhalinyaradoodii ku maqan tahay halkaas ku dhinteen dhalinyaro aad u badanna wax ka dhigantay reer Puntland markaad u hadashid maxay dareemayaan bay ku tahay dadkii dhalinyarada dhalay dadka dhalay ka ku dhintay oo dhiigooda idinku bixiyay halka idinku yimi oo idinku difaacay hadaad maanta tiraakana ahayn dadkii idin dhintay idinka yaalka laga toogtay xaraam ceeb baa leeyahay waxaas xaq darana warkaas kale soo hadashid waxaan leeyahay raaligelin wanaad ka bixisa hadalka adiga wixii kala mid ah yaabaha aynkaas ku hadlaya raaligelin wanaad bixisaan wada isu dulqaataa wixii khalad haday jiraan waxyaabaha kana jiraan aragno iminka oo dhinaca Puntland ka socdana wanaag waa lagu dhameyn karaa xumaan xog kale helmaysaa iyo cay wax lagu kala helaya ma jirto salaadin baa joogta culimaa joogta waa in la dhexdhexaadiyo wadada sax lagu soo dabaala marka waxaan leeyahay xumaanta iyo cayda dhulka la soo maray colaadda la joojiyo dad baa dadkooda maqan yihiin oo dhan walba ku dhinteen marka arrimaha kan dhicifnimada iyo caydan xun oo dhulka la soo marinayo meel walba la dhagaysanayo hala joojiyo baan leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.